shirka dib u heshiisiinta beesha Sade ayaa maanta ka furmay magaalada Kismaayo waxaana daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayadoona uu goobjoog ahaan doono bilow ilaa dhamaad madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo xubno sare oo ka tirsan Jubbaland isla markaana ah beesha Sade shirkan maanta ka furmay magaalada Kismaayo ayaa waxa diiradda lagu saari doonaa sidii loo mideyn lahaa beesha Sade isla markaana ay wax la qaybsan lahaayeen ummadda Jubbaland waxaana madasha shirka maanta ka furmay magaalada Kismaayo lagu arkayay salaadiin culimo awdiin siyaasiyiin aqoon-yahano iyo qaybaha haweenka beesha Sade waa kan madaxweynaha Jubbaland oo daahfuray shirkani waxaana ninka beesha wada hadasho waxa ay qabaan ee ay tabanayaan ee maamulka sheeganayaan ee culays ku ah inay markaas wada jiro soo gudbiyaan waxa laga yaabaa marka xanta laga hadlayo aad waxa loo camalaya قالوا سيدي إمام نوير برلمان صاحب الملك الجريري كون ساعة كان صدق وعدد سنة وعدد سنة وإن شاء الله يوم المقدس والماس يكون الله لقد أقوى الله ووحد خميسنا يوحد هدي حلوانا وصغر بيش السبيل حلوكم ما نسوق هذه كل وسيلة ورجل ما نشري ما نخرج عين بس نحن نوركي ونيم وأنا وحروب الاستوديو لكن وحيانا أنا أخبر كلي وحكملها كنا حتى وحنا تشيء زيارة على الروح بس السبب وبين من قبل لا تشوي فيك مين بيوتها لفنا وربيوتها إلى السنين من نور تقول نحن لكن شنو سندرنا dhanka kale madaxweynaha Jubbaland ayaa soo hadal qaaday inaanay beesha Sade ka hadli karin dhulalka dawladda kuwaasi oo u dhaxeeya dhammaan ummadda Jubbaland waxaana uu tusaale u soo qaatay hoolka maanta oo ka furmay shirka dib u heshiisiinta beesha Sade taasi oo uu sheegay sanado ka hor in ay deganaayeen dad shacab ah baasha mootay إن مال عن سرير وحلوها وردان نقول لك صار نقول لك كعي أنا نقول لك نقول قال سرير مش تقول قال سرير مش ماشي أنا هذا الشيء تقول إيش بتقولين يوم ولا نسان واتقرن نسان بعرف يعرف حقدر سبيل حساب مثلا يقول هذا يقول كيسد وكولا هذا كم معها قبيل كولا هذا كلام مش عيد وحسوي دين إنسان مش دولة شعب إذا قوي دولة ما تشوف دولة شرملا ولا إنسان خليالي إنجليز وعلى وعلى المدرس يعني يكون مشغولون ولا يحملون فرتاج يوسع ملكي هو الملك كان بالبوس كان ثلاثة shirkan oo lagu waday in uu furmo 10ka bishan isla markaana waxa yarnaa wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini si uu u furo shirka dib u heshiisiinta beesha Sade ayaan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee looga kaaftoomay wasiirka Saabir Cabdulqaadir Warsame Saabir Honesty telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Kismaayo